dhaqan ahaan xoolo dhaqatadu si joogtaa sumalka uguma darta idaha xilli go'an mooye waxaana ay sidaas u yeelaan in aanay iduhu dhalin xilli adag jiilaalka oo kale oo aanay isugu darsamin caatannimo iyo dhalid kadibna laga yaabo inay ka soo doogi waayaan xilligaasi adag habeenka la yidhaahdo damba same ayaa amminta ay xoolo dhaqatadu sumalka idaha ku sii daayaan si ay u rimaan habeenkaasi waxa uu ka horreeyaa 150 maalmood xilliga uu roobka gugu bilaamo sidoo kale damba samuhu waxa uu ku dhacaa ama galaa 120 cisho kadib habeenka dabtuurka dabshidka ama neyruuska oo Soomaalidu ku suntato habeenka koowaad ee sanadka Soomaalida habeenkaas damba same waxa uu ku beegmaa bartamaha dayrta bisha November kolkaas oo sida ay Soomaalidu u taqaan dayaxu la jiro xidigaha ururka oo ay Soomaalidu u taqaan laxo sidaas bay iduhu 150 cisho kadib dhalaan oo ugu beegmi jireen xilli uu roobku si fiican u daay ilaa 15 Abriil wara soo jireena oo ay Soomaalidu leedahay ayaa u dhigan marka ay la xadhacaan ay la xadhalaan isbeddelkaasi ku dhacay habeen tirsigaasi oo loo tirin karo doorsoonka cimilada waxay badi bulshada reer guuraaga ahi dareentay bilowgii 70meeyadii qarnigii laga soo gudbay isbeddeladaas awgood waxay xoolo dhaqatadu garwaaqsadeen in aanay habboonayn in habeenka damba same sumalka idaha lagu sii daayo maxaa yeelay lama hubo inay iduhu dhali doonaan xilligii ku habboonaan jiray ee roobku di'i jiray waxaana sababay roobkii oo aan isku halayn lahayn sidaas daraaddeed waxay reer guuraagu door bidaan inay 30 habeen dib uga dhigaan habeenka damba samaha si ay xooluhu u dhalaan bartamaha bisha May halkaas waxay nooga muuqan karaa sida ay reer guuraagu isugu habeeyaan ama ula jaan qaadeen saamaynta doorsoonka cimilada hab kale oo ay Soomaalidu u adeegsan jirtay talaka gaaridda goorta sumalka idaha ku sii deynayaan oo aad ugu kalsoonaan jireen waxa uu ahaa iyada oo ay ka faashadaan qoobleyda cawsha maxaa yeelay lama arag weligeed iyada oo dhashay xilli abaara tiyo laga yaabo in xoolaha iyo ugaadha kale ay dhalaan xilli adag kolkaasna dhashu ka dhimato sheeka dhaqameed ayaa u dhigan cawshu waxa ay daalacataa xidigaha waxaana la yidhi waa ay ka saadaalin og tahay dadka maxaa yeelay lama arko cawsha oo dhasha xilli abaareed marka la barbar dhigo ugaadha kale sidaas daraaddeed waxaa xoolo dhaqatada caado u ahaan jirtay inay ka hor intii aanay sumalka ku sii deynin idaha in ay hubiyaan inay ku beegaan xilliga uu cawlku cawsha orgeynayo goor habeennimo ayay gudi jireen ama guurayn jireen iyaga oo raad guraya cawsha kolkaas haddii ay arkaan in cawlku cawlaha orgeynayo markiiba sumalka ayay idaha ku sii dayn jireen waxaana jirta in idaha iyo cawshu isku sid yihiin ama muddo isleeg caloosha ku sidi karaan dhasha sidoo kale waxaa jira oraahyo badan heeso mahmahyo iyo gabayo laga tiriyey fariidnimada cawlka marka laga hadlayo arrinkan gabyaagii caanka ah ee Cali Dhuux ayaa ka tiriyey tiix erayadeeda ay ka mid ahaayeen markuu cawlku cawlaa orgeyn uu u cibaaroone sheekadani waxay isku xidh ku samaynaysaa aqoonta hadhaadiga ah ku tidhi kuteen iyo isbeddelada baryahan dambe jira qoobley ugaadheed oo xidigaha daalacataa waa arrin la yaab leh ha yeeshee haddii aynu isku dayno inaynu aqoontaas hadhaadiga barbar dhigno aqoonta cusub ee sayniska waxaa la xaqiijiyey in qoobleyda qaarkood ay awoodaan inay dib u dhigi karaan foosha haddii aanay saansaanka ama xaaladaha ay ku dhalayaan aanay ku habboonayn sida abaaroo kale halkaasna waxa aynu ku xaqiijin karnaa in neefka ay dhalaan uu ka badbaado silaca iyo soomalhaadka abaarta taasoo aynu uga jeedno in cawshu ay goor kasta dhasho xilli roob curtay haddaba arrinka murugada lihi waxa weeye in cawshu tira ahaan sii yaraanayso waxaana ururka caalamiga ee badbaadinta dabeecadda International Union for the Conservation of Nature ku suntay in cawshu ku sugan tahay xaalad nugulaanshiyo waxaana la geliyey liiska guduudan ee muujinaya in xayawaankaasi uu ku sii siqayo dabargo sidaas daraaddeed daciifnimada cawsha ayaa ka dhigi karta in aan si baasan loogu adeegsan karin ku jaangoynta sumal ku darsigii idaha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintan kooban ee aynu ku soo qaadanay doorsoonka ku yimi xilligii sumalka idaha lagu sii deyn jiray waxaanu mahad celinaynaa oo qoraalkaanu ka soo xigeennay hay-adda waddaniga ee ka dhalayd si gaara qoraal ay daabaceen qorayaasha axmed ibraahim cawaale axmed jaamac sugulle iyo qorayaal kale oo ajaaniba waxaa idila socodsiinayey anigoo cabdicasiis saciidid cilmiya